السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channelka walaalahena qaaliga ah ما شاء الله aad iyo aad ayaan ugu mahadsantihiin sida qaaliga ah oo fiican oo ما شاء الله aad inoogu xiran tihiin anigana waan dadaaloyaa saa u jeedaan ما شاء الله marka sheekooyin badan ayaa maanta idiin wadaa horta intaan qisooyinka aan guda gelin waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo challenge-kii wuu bilaabmay maanta marka meesha waxaa ka heli kartaan community post marka ayatul kursigeena challenge-keena waa sii wadanaynaa hadduu alla yiraahdo dadkiina la soo qayb galaya gadaal ama haddaba markastaba anytime aan soo geli kartaa insha Allah marka qofka koowaad videogan hadaan ku laabano wuxuu yiraahday waxaan leeyahay maqaarka qolofta psoriasis I think ala dhaha laakiin wuxuu yiri markaan istighfaarta badiyo waxaan dareemaa maqaarkayga oo si nadiifaya oo hagaagaya ayaan dareemaa okay qofka labaad wuxuu dhahay sheeko oo sheekhu wuxuu sheegay in kadib markii geeridii aabihiis Allah u naxariistay caruurtiisii ay iska xil saareen inay iska bixiyaan deynta aabahood lagu lahaa laakiin deyntu aad bay u farabadnayd waxayna qoyskoodii ku keentay walaac iyo walbahaar maalin maalmaha kamid ah waxay go'aansadeen inay boqdaan dadka ay lacagta ku lahaayeen si ay u bixiyaan inta ay awoodeen ama inta ay heli karaan intii ay jidka ku sii jireen sheekhu wuxuu soo xasuustay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam in Allah subhanahu wa ta'ala dadka dambiyada uu dhaafayo dhibaatooyin oo dhan laga qaaday walbahaarka markaas ayuu bilaabay inuu si joogto ah ugu saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam gaar ahaan salaatul ibraahimiya maadaama ay tahay tan ugu dhameystiran oo ugu awood badan markay u tageen qof kasta oo aabahood lacag ku lahaa waxay la yaabeen jawaabta ay heleen inta badan dadku waxay u sheegeen lacagta iska daa dhib ma laha waan cafinay aabaha ilaahayna u naxariisto way u duceynayeen aabahood qof kasta oo ay la kulmeen wuu cafiyay deyntii aabahood lagu lahaa lacagna kama qaadin xataa wax yarkii ay haysteen xataa way diideen markay liiskii dadkii oo dhan ay soo dhameystireen waxay ogaadeen barakada ay leedahay nabiga sallallahu alayhi wasallam in lagu saliyo arintii deynta aabahood lagu lahaa kulli waa la cafiyay lacag badan ayaa u soo hartay intii yarad ay haysteen iyaga dadkiina waxay tuseen naxariis iyo jacayl iyo duco subhanallah qofka saddexaad wuxuu dhahay walaashin waxay noo sheegtay qisadan waxayna tiri waxaa jira nin doonaya inuu iyada guursado laakiin iyadu maysan rabin guurkaas gabadha familkeeda markii ninka loo soo bandhigay gabadhii way diiday laakiin familkii maysan rabin inay gabadha dhageystaan wayna ku adkaysteen inay aqbasho inay ninkan guursato maalin maalmaha kamid ah ninkii si rasmi ah ayuu u yimid gurigoodii uu u weydiistay inuu guursado gabadha si official ah si kasta gabadhii way diiday laakiin waa lagu qasbayay waxa la yiri waa inaan guursato wayna ku riixayeen waxayna ku cadaadinayeen inay ninkaas guursato mar walba marka inantu waxay go'aansatay inay guriga dabaqadiisa sare meel hawo furan oo aan lahayn dabool inay korto si ay waqti kaligeed u hesho oo qofna uusan u dhibin saligii musallada oo salaada ay dhigatay dhulka wayna ku fariisatay waxayna bilowday inay ku celceliso salawaatul ibraahimiya maxaa yeelay waxay ogeyd in sabab ay u tahay inuu Allah subhanahu wa ta'ala dambiyada uu u dhaafayo dhibaatada dhan ka dabcinayo waxay kalsooni ku qabtay in Allah subhanahu wa ta'ala uu ogyahay waxa ay qalbigeeda ku hayso iyo waxyaabaha dhibaya iyadoo ilmeynaysa xanuun iyo murugo badan dareemaysa waxay sii waday saliga sallallahu alayhi wasallam ku dhawaad ilaa iyo nus saac kadib markii xoogaa maskaxdeedii ay degtay waxay hoos ugu soo laabatay gurigii laakiin markay timid waxa la ogeysiyay in aabaheed uu ku gacan sayray oo uu diiday ninkii guursan lahaa gabadhan waxay ahayd gabadh da'deeda 40 maraysa qofna ma filayn inay guursato nin wanaagsan sabab la xiriira da'deeda darteed laakiin yaab ilaahay barakadiisa awgeed waxa soo doontay nin aad u wanaagsan oo 2 sano ka yar da'deeda wuxuuna si xurmo leh u weydiistay guur familka maanta walaashu waxay noo sheegtay inay ku nooshaan nolol farxad leh oo barako leh subhanallah qofka saddexaad wuxuu yiraahday sanadkii hore bisha Maarso ayaan helay video ku saabsan istighfaarta runtii aad iyo aad ayuu ii caawiyay waxaan lahaa caado xun ayaan lahaa oo addiction ah oo wax oo aan iska joojin karin ma aanan garanayn sidaan uga takhaluso waxaas laakiin istighfaar ayaa ii noqotay xalka kaliya oo aan kaga adkaaday wallahi nabadda iyo xasiloonida aan dareemayso marka aad si dhab ah istighfaar u sameyso waa wax aan la sharxi karin qofkan wuxuu yiraahday subhanallah aniga waxaan igu dhacday qalbi jab iyo niyad jab ayaan qabay
maxaa yeelay ninkii aan jeclaa ayaa iga tagay oo i nacay waan murugooday markaas ayaan go'aansaday inaan Allah subxaanahu wa tacaala u noqdo dambi dhaaf aan weydiisto oo istighfaar badan aan sameeyo waan sii wada dikriga maalin kasta Allah ayaan u barooranayay maanta qalbi jabkaygii waa iga baaba'ay Allah subxaanahu wa tacaala wuu iga dulqaaday murugadii iyo xanuunkii aan dareemayay qofka kale muxuu yiraahday sheekadan waa mid dhab ah oo walaal Masri ah uu soo sheegay walaalkan dambi uusan isaga gelin baa dusha laga saaray taasoo sababtay in lagu xukumo ugu yaraan 7 sano oo xabsi ah laakiin xabsigan ma ahayn mid caadi ah wuxuu lahaa ciqaab aad u adag oo keeni jirtay in maxaabiista qaarkood maskaxdoodii baaba'do dib iyo dhaawac iyo jirdilid xabsiga ay ku mari jireen darteed gaar ahaan xaakimkii ama judge-kii oo dacwadiisa gacanta ku hayay wuxuu si cad ugu sheegay inuusan marnaba xor noqon doonin habeenkii ugu horeeyay ee xabsiga wiilkan wuxuu go'aansaday inuu Allah subxaanahu wa tacaala baryo uu weydiisto xal uu kaga bixi lahaa xabsigan wuxuu sameeyay istighfaar iyo duco badan isagoo Allah ka baryaya inuu xabsiga ka saaro habeenkaas riyo ayuu arkay waxaana lagu yiri riyadaas sii wad saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam kor u qaad tirada ilaa ay ka gaartay 150,000 si aad xaaladan adag uga baxdo waa inaad saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam wadaa wuxuu go'aansaday inuu had iyo jeer uu saliga nabiga alayhi wasallam ku daro markasta ku celcelinaya salawaadka gaaban haddana wuxuu markale ku riyooday isagoo lagu amrayo inuu sii wado oo tirada sii kordhiyo si uu uga badbaado ciqaabta aadka u daran ee xabsiga ka dhaca ilaahay amarkiisa iyo dadaalkiisa joogtada ahayd xaakimkii hore u rabay inuu weligiis xabsiga ku jiro ayaa noqday qofkii xabsiga ka saari lahaa waa wax mucjiso ah wuxuu xabsiga ku jiray oo kaliya 23 beri inkastoo sharciyan xabsiga inta u yar ee lagu jiri karo xabska 6 bilood kaliya uu yahay wiilkan only wuxuu ku jiray 23 beri laakiin arintaas intaas kaliya kuma ekaan wuxuu sii sheegay in 4 maxbuus oo kale oo xabsiga aygan la sii daayay sababtoo ah maalin habeen waxa kaliya ay ku mashquulsanaayeen wuxuu ahaa salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka way la yaabeen markay arkeen wiilkii wadada socda maxaa yeelay qofna waa aamini waaye sida fudud ee mucjisada leh ee xabsiga uga soo baxay ugu yar xabsiga ku jira waa only waxa weeye 6 bilood laakiin wiilkan bil xataa muusan gaarin walaalku wuxuu ku dardaarmay in marmar ay caadi tahay in qofka focuska uu ka tago oo maskaxdiisa marmar meelaha kale iska aadayso isagii markuu rabay inuu qofkaas adkaata sameeyo laakiin muhiimadda waa in la isku dayo in aad dhabar adeegto oo aad ku adkaysato oo marba maskaxda soo celisid ku soo celi jidka dambeyn wax walba waxay awood badan yeelanayaan haddii niyadeenu wanaagsan tahay aan aaminsanahay okay qofkii kale wuxuu yiraahday nambaradu ay kala dhumeen laakiin waa iska wadnaa qofkii kale wuxuu yiraahday sheekadan waa sheeko ku dhacday gabar Tunisian ah walaashan waxay ogaatay inay qabto cancer markay jirtay 14 jir waxay raadisay daaweyn caafimaad ugu dambeyntii Allah subxaanahu wa tacaala uu daaweeyay 10 sano kadib way guursatay laakiin dad badan ayaa waxay gabadhan u sheegeen inay caruur dhali karin sababtoo ah daawooyinkii kansarka oo xooganaa ay qaadan jirtay darteed laakiin mucjiso 7 bilood kadib guurkeedii cunug yar ayaa dhashay wiil I think 7 bilood wuxuu u dhashay san jeclahay in qofku wax fiican baa laga fishaa waxa laga yaabaa premature inuu ahayo babyga ma aan soo hormaray okay saan sii wadano laakiin 2 sano kadib guurkeedii way kala tageen ninkeedii oo waxay ku laabatay gurigeedii hooyo iyo aabe halkaas ay ku nooleed muddo 3 sano kadib waxa uu yimid nin si dhab ah u jecel wuxuuna rabay inuu guursado inkastoo qoyskiisii ay ka soo horjeedeen inuu guursado gabar hore loo soo furay oo ilmo leh laakiin isaga taasi dhib kuma hayn uu jeclaa wuuna guursaday wuuna u naxariisin jiray gabadhan si fiican uu la dhaqmi jiray inkastoo familkiisa dhibaatooyin badan uu kala kulmay waxay gabadha markii inoo sheegtay muddo 30 sano oo dhan inaysan salaad tukan la hawla wala quwwata illa billah ilaahay naga dhigin kuwaas ilaahay kuwa ahna ilaahay soo haday iyagana ilaahay soo haday subhanallah bila kadib waxaa la ogaaday in cudurkii kansarka dib ugu soo laabtay markaan wuxuu ka galay ilmo galeenka markay maqashay waxay bilowday inay si xun u oydo maxaa yeelay waxay ka baqaysay in Allah ay la kulanto iyadoo
qof salaad aan tukan ah marka gabadhii 30 sano maana tukan bay tiri qofka ilaahayna waxaa laga yaabaa inaa caawa dhinto hadda aad dhinto maxaa sameeyaa waxay bilowday inay duco badan sameyso iyadoo leh yaa rab icafi waxaa kaan ballan qaadaya inaan tukado caafimaadna isii waxaa kaan ballan qaadaya inaan tukado inaan noqdo qof muslimad fiican waxay si joogto ah u akhrin jirtay laa xawla walaa quwwata illaa billaah waxay kaloo dhihi jirtay xasbi allahu wa nicmal wakiil waxay sidoo kale subax kasta akhrin jirtay suuratul baqara iyo ruqyada iyada oo niyeysatay inuu Allah cudurka ka daaweynayo maalmo kadib waxay ku riyootay qof wax xun ka saaray ilmo galeenkeeda oo dibaddana u tuuraya subxaanallah maalintii ku xigtay ayay isbitaalka tagtay waxay ku adkaysatay dhakhtarka inuu mar kale baaritaan sameeyo inta daaweyntii kansarka la bilaabin oo si loo xaqiijiyo xaaladeeda laakiin markii la eegay natiijada waxaa la ogaaday in jirkeedii aysan jirin wax kansar ah oo dhammaan wixii raadad cudur ahaayo dhan way ka baaba'een dhakhtarku wuxuu xaqiijiyay inay hore ugu jirtay marxaladii ugu dambeysay cudurka kansarka stage 4 qaybkii ugu darneed bay ku jirtay laakiin markay si joogto ah u sameysay adkaarta ruqyada suuratul baqara ilaahay wuu caafiyay walaashi way ooyday sujuud ayay la dhacday dhulka iyadoo Allah u mahad celinaysa waxay sii wadatay ducadeedii iyadoo kalsooni buuxda ku qabta Allah subxaanahu wa ta'ala waxay bilowday magaceedii Allah subxaanahu wa ta'ala asmaa'ul husna inay ku duceysato waxayna aad u sii xoojin jirtay ku sii adkeyd inay salaada waqtigeedii si joogto ah ugu tukato marka natiijadii waxay ahayd way caafimaaday dhammaan daawooyinkii dhan waa laga joojiyay cudurkii gabi ahaanba waa mirqay qofka kale muxuu yiri waan kugu raacsanahay 100% maalin kasta waxaan akhriyaa 100 ilaa 1000 jeer waxaana xaqiiq ah dhibaato kasta kadib Allah uu fududeeyaa Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa iga dhigay mid diintiisa si adag u haysta oo ii xoojiyay iimaankayga haddii aysan istighfaar jirin maanta ma joogi lahayn halkan joogo alxamdulillah qofkan kale wuxuu yiri waxaan la dhibtooday dhibaato xagga uur qaadida infertility saaxiibtay ayaa ii sheegtay inaan istighfaar badan sameeyo markaas ayaan bilaabay inaan subax kasta iyo habeen kasta aan si joogto ah u akhriyo dhaqaatiirtii xataa way sharxi waayeen way fahmi waayeen sidaan uur ku yeeshay maxaa yeelay waxay dhaheen wax suurtagal ma ahayn inaad uur qaado adigoo jiradan la dhaho jiro ay qabtay jirada ay qabto waa jirada menopause early menopause waqtigii ma aragtay ugxamada hoosheedii meeshii ugxamada soo bixi lahaa waa soo bixi waayeen shaqadeedii ayay joojisay something like that laakiin alxamdulillah ilaahay maanta wuxuu siiyay gabar qurxoon waxay tiri istighfaartu waa mucjiso dhab ah qofka ugu dambeeyay waxay dhahday sheekadan waa sheekada walaasha dhaxalka loo diiday walaashan waxay tiri waxay dhaxal u lahayd xaq laakiin qoyskeedii ayaa ka hor istaagay inay xaqeeda hesho waxay si qaldan ah u aaminsanayeen in gabar aysan xaq dhaxal u lahayn taasoo diinta islaamka ka soo horjeedo way ka dagaalantay cadaalad daradaas laakiin muddo dheer ayaa laga hayay dhaxalkii ay xaq u lahayd ugu dambeyn way quusatay waxayna aamintay in marnaba la siin doonin waxeeda way duceysatay laakiin markii aragtay in Allah subxaanahu wa ta'ala wali uusan ducadeeda ka aqbalin waxay dareentay in laga yaabo in dambiyadii hore u soo gashay ay sabab u yihiin dib u dhaca jawaabta markaas ayay go'aansatay inay dib isu fiiriso oo Allah u noqoto nolosheedii inay wax ka bedesho ayay bilowday waxay la hadashay Allah subxaanahu wa ta'ala iyadoo u sheeganaysa dulmigii iyo cadaadiskii ay familkeedii ku hayeen waxayna isku xirtay qolkeedii waxayna fariistay salligii iyadoo isku dayeysay inay xiriir adag la yeelato Allah subxaanahu wa ta'ala murugadeedii ayay la oyday waxayna ka calaacashay dhibaatooyinkeedii oo dhan iyo dambiyadeedii oo dhan way ka toobad keentay waxayna si dhab ah u sameysay istighfaar iyadoo qalbi saafi ah Allah ugu baryaysa dambi dhaaf waxay Allah la gashay balan adag inay nafteedii hagaajiso inay dambiyada ka fogaato intii karaankeeda ah iyo inay Allah u dhawaato si dhab ah kadib iyadoo ilmeynaysa waxay Allah ka baryaysay inuu ducadeeda ka aqbalo oo u rumeeyo wixii ay rabtay waxay ogeyd in Allah marnaba u dayici doonin qofkii isaga daacad u ah iyadoo ilmeynaysa oo Allah la hadlaysa waxay si aan ula kac lahayn way hurdootay markiiba iyadoo wali saliga fajiifta laakiin 10 daqiiqo ka bacdi taleefankeedii ayaa soo dhacay wuxuu ahaa aabaheed oo u sheegay inuu rabay inay bari kulmaan wuxuu u ballan qaaday in si cadaalad ah loo siin doono dhaxalkeeda oo dhan iyadoo aan waxba dulmi lagu sameyn way ooyday farxad dartiis waxay u mahad celisay Allah subxaanahu wa ta'ala
waxayna xasuusatay balantii ee la gashay inay ka fogaato dambiyadii oo dhan iyo inaysan mar dambe salaada ka tagin wayna fulisay balanteedii nolosheediina waxay noqotay mid barako badan waxay guursatay nin ay aad u jeclayd waxay dhashay caruur waxay heshay guri u gaar ah barako badan Allah wuu ugu daray subxaanallah markaad Allah isku halayso weligaa Allah kuma dayacayo marka qisooyinkeeni intaan bay ku eg tahay waxay noo tahay fiidiyoga soo socdo kaleeto khayr baan isku ognahay aan isku soo duceyno kulligeen aan iscafino anyways sheeko intaas nagu ekaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu